بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكوشو دوada warka janalka Somali News 724 kuwada maanta ugu waaweyn waxa kamid ah ciidamo cusub oo lagu daad Gureyey xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo waliba Kenya iyo waliba xaaladii ugu adkeed oo halkaas laga soo sheegaya iyo golaha wasiirada Soomaaliya ee uu soo dhisi doono ra'iisul wasaare Roble iyo xubnaha soo laabanaya iyo kuwa baxaya oo xilligan durbaba warar iskhilaafsan laga helaya xarunta uu ku shaqeeyo ra'iisul wasaaraha cusub xog ku saabsan dad loo soo qabtay dilkii taliyihii ciidamada ilaalada ee xarunta golaha shacabka oo durbaba soo baxayso iyo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Cali Gaas oo sheegay inay jilaan dawlado faragelin ku haya Soomaaliya waa maxay dawladahaasi warka janalka Somali News 724 ayaan idinku soo gudbin doonaa daawadayaal iyo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald J Trump oo sheegay in xilligan aanu suuragal ahayn in Mareykanka ay doorasho ka dhacdo xilli doorashada Mareykanka ay wax yar uun ka harsan tahay qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka janalka Somali News 724 fadlan daawada hadii ay tahay markii ugu horeysay aad janalkan soo booqato hanaga ilaawin subscribe share like gambarelka furo si aad u rukumatid janalka Somali News 724 hadii aan ku bilaabo daawadayaal warar lagu kalsoon yahay oo heshay Somali News 724 ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha cusub maalmaha soo aadan uu ku dhawaaqi doono golahiisa wasiirada ee xukuumadda cusub kadib markii la ansixiyay Sabtidii xogaan helnay ayaa sheegaysa in Roble ay markaasi la siiyay liiska golo wasiiro oo markaasi xulan iyo qaar kamid ah wasaarado bannaan oo aan wali markaasi dad loo xulin isaga oo markaasi loo madax banaaneeyay si dadka ugu ku dhow markaasi ugu qanciyo liiska wasiirada ee markaasi magacaaban isla markaana lagu wareejiyay ayaa la sheegay in ay markaasi ka badan yihiin saaxiibada markaasi madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba kuwa hadda ku jira xukuumadda iyo waliba qaar yar oo cusub oo lagu soo kordhiyay dadka la sheegay inay ku jiraan magacyadaasi waxa kamid ah ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad wasiirka warfaafinta Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre iyo waliba qaar markaasi kale oo hadda ka si hayaasha golaha wasiirada warkan oo aan helnay ayaa sidoo kale markaasi sheegaya in dhowr xubnood oo wasiiro markaasi laga reebay liiskan isla markaana ra'iisul wasaaraha cusub lagu wargeliyay inuusan markaasi ku soo darin xukuumaddiisa waxaana kamid ah shakhsiyaadkaasi wasiirka amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka wasiir Cabdi Maxamed Sabriye iyo waliba wasiir ku xigeenka dekedaha iyo gaadiidka ee badda xildhibaan Cusmaan Daalo iyo waliba qaar kale oo badan wasiiradan ayaa ahaa saaxiibada ugu dhow ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxayna qaarkood markaasi ku sheegayaan inaysan ku soo laaban doonin xukuumadda cusub sababo jira awgood balse sababaha markaasi loo soo celinayo wasiirada hore ayaa sidoo kale lagu sheegay in shaqaale halkeedii markaasi ay ka sii wadi doonaan shaqadana markaasi ay sii dardargelin doonaan taas oo markaasi mid badan xilligan dadka Soomaaliyeed ka careysiin doonta dhinaca kale ciidamadii ugu badnaa ee markaasi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa maanta la geeyay xadka ay wadaagaan xuduudda Soomaaliya iyo waliba Kenya taas oo markaasi ciidamadaasi loo geeyay inay halkaasi ilaaliyaan ciidankan markaasi dawladda Soomaaliya ay geysay ayaa waxa lagu sheegay magacooda inay yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad kuwaasi oo tababar dhawaan ku soo qaatay wadanka Turkiga sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo haatanba aanu ka hadlin ciidamada halkaasi ay ku daabushay sidoo kalena waxaa jira walaac badan oo xilligan markaasi laga soo sheegaya halka ciidamada la geeyay ciidamadan ayaa waxaa la geeyay xuduudda markaasi Soomaaliya ee loo yaqaano BB1 halkaasi oo ay markaa horay ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan dawladda Kenya sidoo kale waxaa markaasi xilligan la soo warinayaa in waxyaabaha ugu badan ee ciidamadan halkaasi loo geeyay ay tahay sidii ay u difaaci lahaayeen
xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo waliba Kenya oo muddooyinkii dambe aynu ka soo dhaafnay ay markaasi waxyaabo badan ay ka dhacayeen oo falal aan markaasi loo dulqaadan karin. waxyaabaha kale ee xilligan markaasi la sheegayo waxaa ka mid ah xuduudaasi in xilligan ay ciidamadu markaasi si nabadgelyo ah halkaasi ku joogaan, sidoo kalena markaasi lagu wado in halka ay markaa ka sameeyaan waxyaabo aan markaasi ay sheegeen inay uga hortagayaan falalka ay ciidamada Kenya halkaasi ka sameeyaan. wararkii ugu dambeeyay inuu ka helino xuduudaasi BB1 ayaa sidoo kale la soo sheegaya in waxyaabo badan ay ciidamadu markaasi halka la tageen oo ay ka mid yahay hubka markaasi darandooriga u dhacayo, sidoo kale hubka markaasi fudud ee markaa gacmaha lagu qaato oo ugu horeyso qoryaha AK47 iyo waliba BKM-ka. waxyaabaha kale ee xilligan markaasi lagu tuhmayo ayaa waxaa ka mid ah in dad badan ay xilligan markaasi aanu arkaynin waxyaabaha halkaasi ka socda, balse dowladda Soomaaliya oo war kooban soo dhigtay gaar ahaan wasaaradda difaaca Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in ciidamadaas ay markaa ay xaq u leeyihiin inay ilaaliyaan xuduudda markaasi Soomaaliya ay la wadaagto Kenya. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marna soo noqday madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inay jiraan qaar ka mid ah dalal Carabeed oo mar walba faragelin ku sameeya arrimaha doorashooyinka dalka si uu markaasi ugu guuleysto masharaxa marka ay doonayaan. dalal ay markaasi ugu badan ee lagu tuhmayo inay taageero siiyaan siyaasiga markaasi ay leeyihiin saameyn weyn ayuu ku leeyahay doorashada ayaa waxaa markaasi ka mid ah dalalka Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo waliba Qatar, walow dowladda Qatar ay haatan markaasi tahay saaxiibada madaxda sare ee dowladda Soomaaliya ee iminka xilka ku fadhiya. Cabdiweli Gaas oo markaa ku sugan magaalada Nairobi lana hadlaya mid ka mid ah TV-yada Soomaaliyeed ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado in arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ay faragelin ku sameeyaan wadamo shisheeye isla markaana go'aaminteeda ay qayb ka qaataan. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo hadal qaaday markaasi qaar ka mid ah qodobada heshiiska doorashooyinka gaar ahaan ergada la kordhiyay, waxaana uu sheegay in doorashooyinkii 2016 in ergada laga dhigo 51 uu qayb markaasi ku lahaa si looga hortago musuqmaasuq, balse uu dhacay hayeeshee uu rajeynayo in ergada markaasi oo hadda laga dhigay 101 laga gudbi doono musuqmaasuq sida uu sheegay Cabdiweli Maxamed Ali Gaas. dhinaca kalena ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa soo qabtay ilaa iyo waliba 4 qof oo markaa ka shaqeynayay iyo waliba qaar kale oo ka agdhawaa foorno markaasi rootiga lagu sameeyo oo ku taala degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir, halkaas oo shalay lagu dilay Allaha u naxariistay Xidigle Buule Xasan oo ahaa taliyihii ciidanka ilaalada xarunta golaha shacabka. qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa Somali News 724 u sheegay in ay markaasi dadkan ay dhammaantood la soo xiray, waxaana markaasi sababta xarigooda lagu sheegay tuhun ay markaa la xiriira dilka. Xidigle Buule Xasan oo ahaa taliyaha ciidanka ilaalada ee xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kale waxa uu ahaa qofka ganacsada rootiga lagu iibiyo maqaayada halkaasi ku taala iyo waliba mid ay cunayaan ciidanka raggaasi markaa iyo waliba aaga ku sugan oo isugu jira boolis iyo military. xubnaha markaasi ka mid ah hay'adaha ammaanka ayaa markaasi sheegay in duhurnimadii shalay ay ciidanka tageen foornadan kadibna ay markaasi ka soo kaxaysteen ilaa iyo waliba 4 qof oo isugu jira dad shaqaale ka ahaa halkaasi iyagoo markaasi kuwa kale oo ka agdhawaa marka uu dilka dhacay. marxuum Buule Xasan waxaa markaasi toogasho ku dilay dhalinyaro bastoolado wato, sidoo kalena la sheegay inay wateen mooto, waxaana la sheegay in dilka kadibna ay goobta ka baxsadeen. wali ma jiro wax faahfaahin oo ay markaasi bixiyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed saraakiishooda oo ku saabsan dilka shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. ugu dambeyntiina madaxweynaha wadanka Mareykanka oo goordhow saxaafadda kula hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in ay xilligan markaasi suuragal ahayn in Mareykanka ay doorasho ka dhacdo xilli markaasi xanuunka COVID-19 uu sheegay inuu ku soo laba kacleeyay wadanka Mareykanka. waxyaabaha xilligan uu markaasi gaashaanka u duruuray madaxweynaha wadanka Mareykanka waxaa ka mid ah qodobo ay xilligan uu sheegay in aysan suurtagal ahayn inay doorasho ku dhacdo oo Mareykanka xilligan uu ka fogaanayo.
waxyaabaha kale ee xilligan markaasi soo qaatay ayaa waxa uu ku sheegay in COVID-19 oo muddooyinkii dambe uu markaa kusoo laba kacleynaya Mareykanka ay sabab u noqotay in waxyaabo badan ay xilligan hakad galaan. hadalka Mareykanka markaasi madaxweynihiisa ka soo yeeray ayaa xilligan waxa markaasi durbaba iyaguna markaa ku gacan sayray xubnaha markaasi ee xilligan iyaguna ku loolamaya awooda markaasi madaxweynenimo ee wadanka Mareykanka iyaguna markaasi ku sheegay in arrimaha doorashada aysan xilligan u yeelin madaxweynaha wadanka Mareykanka go'aan rasmina oo xilligan ka gaari karin. waxyaabaha kale ee xilligan markaasi ay sheegeen waxa kamid ah in aysan xilligan suurtagal ahaynba in madaxweynaha wadanka Mareykanka oo kamid ah ay yiraahdeen musharaxiinta ku loolamaya awooda madaxweynaha uusan xilligan markaa ka hadli karin arrimaha doorashada loona baahan yahay in ay ka hadlaan maxkamadda sare ee dalka iyo sidoo kale in ay ka hadlaan shacabka ku nool wadanka Mareykanka qaybihiisa kala duwan. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya warka aad ka daawaneysaan channelka Somali News 724 fadlan daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelkan soo booqato hanaga ilaawin subscribe share like gambalelka furo si aad u rukumatid channelka Somali News 724 nabadgelyo amaan Allah.